warmartiyeed kiisalka la akhri marra inaan faahfaahin ka bixiyo wixii shirka ka soo baxay waxaan rajaynayaa mas'uuliyadda dadkii ka qayb qaatay shirkaas qaybihii kala duwanaa ee warmartiyeedkaas soo saaray inay u howlgalaan qodobadii ku yaalay siday dhaqangal u noqon lahaayeen waxaan rajaynayaa sida uu qeexay xaaladda waddanka uu ku jiro dhinac amni dhinac siyaasadeed dhinac dhaqaale iyo sida lama huraan ay u tahay ama baahida loogu qabo in marxaladan la helo hannaan doorasho oo lagu midaysan yahay oo hore u sii wada geedi socodkii dowladdiska Soomaaliyeed dabcan baqdin baa la qabaa sababta loo baqaayana waxa weeye waa ficiladii la soo dhaafay oo la arkay oo u muuqanaya kuwo aanan u socon wadada saxda ah haddii dalku hannaan fiican ku socdo waddo wanaagsan ku socdo baahida golahan loo qabtana ma dhalateen shirweynahana lama unkeen inay baahi jirto waxaa daliil u ah tallaabooyinka shaqo ee muddadii u dambaysay Soomaaliya ka socday oo saldhig ay u ahaayeen madasha samata bixinta maantana gaaray golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kuna soo biireen bulshada qaybaheeda kala duwan oo shirweynahii koowaad maanta halku qabsaday qorshaha la dhigtay road map cad baa halka laga sheegay oo waqtiyeysan oo taariikhaysan waxaan rajaynayaa inuu noqdo badbaado marxaladan ee dalkeenu marayo xaqiiqdii oo ah marxalad xasaasi ah oo tashi badan u baahan waxaan rajaynayaa madaxda dowladda federaalka oo u horeeya madaxweynaha dowladda federaalka inuu baaqa hal ka soo baxay si niyadsan uu abaari doono waa xogagaal waa maraaxil uu soo maray waa mid uu ka soo taliyey waa mid uu dareenkeeda qabo waxaan rajaynayaa cid kasta oo maanta madashan ka maqan oo xil u haysa ummadda Soomaaliyeed hadday tahay mid siyaasadeed xil siyaasadeed hadduu yahay xil dhaqan hadduu yahay xil dhinaca bulshada ah oo ugu horeysa culimadu waxay anigu fariintayda tahay aad maasay kooxda Bambayda markaana ila soo dhaweeya odagii gobasha madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan rabaa inaan qof walba oo halkaan fadhiya mas'uul kasta oo qof walba maqaamka uu ku fadhiya inaan ku salaamo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan dadka ka soo qayb galay shirkan oo ay hogaaminayaan golaha mustaqbalku
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mas-uuliyiinta iyo shacabka reer Jubbaland oo aan uga mahadceliyo sida qadarinta lahayd ee martidooda u ixtiraameen. waxaan rabaa inaan uga cudur daaro laba dhinacba. martida inaan uga cudur daaro wixii gaabisa ee idin soo gaadhay ee gurigiinna idinku soo gaadhay. shacabka reer Kismaayona waxaan rabaa inaan cudurdaar uga bixiyo hadday jidad xidhnaayeen iyo hadday culays dareemeen inaan idhaahdo cudurdaar baan idinka siinaya. intaa ka bacdi waxaan isleeyahay war meeshaan dhinnaa ma jiro. war hadda Siciid uu yidhaahdo qolada iga dambaysaa sheegaysana ima muuqdo. warku warqaduu ku yaallaa. annaga waxaa nala jirtaan rabaa inaan idiin damaanad qaado waxa warqaddaa ku qoran inaan fulinayna haddii la yidhaah. waqtigu uu dhow yahay. qodobka 6 iyo ka 7 way isdaba yaallaan. haddii sidaa la weeli waayo in sidaa la yeelayo waa la ogyahay. waxaanan ubaa xasan sheekh laftirkiisu inuu ogyahay inay soconayso. intaa markaan ka tago warka warqadda ku yaallana aan intaa u sheego. Soomaaliya